iyadoo guud ahaanba geyga Soomaalidu degto ay ka jirto abaar baahsan gaar ahaan gobolada bariga Somaliland ayaa waxay soo taraya gurmadka loo fidinayo dadka abaaruhu saameeyeen ee diifta iyo daryeel la'aanta la daala dhacaya deegaanada hoos yimaada gobolka Togdheer haddaba ururka lagu magacaabo Maxamuud Axmed Cali Foundation ayaa deeq biyaha oo ka kooban 3 booyood gaarsiiyay degmada Duruqsi oo ka tirsan gobolka Togdheer kuwaasi oo ugu talagalay dadka jilicsan ee abaartu ku dhufatay waxaana deeqaasi kala wareegay dadka ku dhaqan degmada Duruqsi iyagoo u mahad celiyay ururka Maxamuud Axmed Cali Foundation isla markaasina sheegay in la soo gaarsiiyo waqtigii ay ugu baahida badnaayeen waxaana kamid ah hadaladoodii waxaanu kala mahadnaqaynaa mu'asasada Maxamuud Axmed Cali nagu caawisay biyaha anagoo waqti aad iyo aad u baahidaydu taagantay ay noo keentay waanu u mahadnaqaynaa iyaga iyo cidii kale laga caawisay abaarta ay jilalada waxa weeye ma hayno waqtigii xilliga roobka lagu waana saacadihii ay anaga noogu dadwada keenayahay noogu adkayd xaaladdeedu waxay maraysaa 100% Allah subhanahu wa ta'ala ayaa baahida qaadi kara anigoo ku hadlaya magaca odayaasha degmada inta ka cabta ceelka imika biyo barkada biyo ku subaysaan magacoodana ku hadlaya waxaan mahadnaq u soo jeedinaynaa deeqda biyaha ee nooga timi Maxamuud Axmed Cali Foundation waxaan weenay biyahaas waxay maanta nagala soo kulmeen kaalin aad iyo aad u qiimo badan waayo dad iyo duuyo oo biyahan u raadinay weeye hay'adda Maxamuud Axmed Cali Foundation anu aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa deeqdana la soo gaadhay waxaan u mahadnaqaynaa Maxamuud Axmed Cali inay noo soo kordhiyaan waan doonaynaa waqtiguna waa nagu adag yahay ilaahay baan qaadi kara baahida 3 booyood oo ay loo soo dirtay Maxamuud Axmed Cali Foundation oo hay'adaas oo nagala soo kulantay maanta meel wacan annagoo surmiya annagoo tii u dambaysay annagoo doontu nala degtay meel wanaagsan nagala soo kulantay ayaan idin hoos taaganay dadkan abaaruhu saameeyeen ayaa u baahan in gargaar degdeg ah la soo gaaro waa Muuse Axmed Jaamac telefishinka Afrika Cable Burco